Global Firepower waa majalad ka faalloota awoodaha militari ee caalamka ayaa isbuucan daabacday siday u kala sarreeyaan wadamada Afrika dhinaca awoodaha ciidan. Soomaaliya ayaa ka soo muuqatay kaalinta 35aad ee liiskan, waxaanay ka kormartay ku dhowaad 20 wadan oo Afrikaan ah. Marka loo eego hadda ka hor, waa guul weyn oo qaran ahaan Soomaalidu ka gaadhay dhinaca dhismaha ciidamada. Tirakoobka ciidamadu waxa uu ahaa tallaabadii ugu muhiimsanayd ee dib u dhiska iyo in dib loo tayeeyo awooddii ciidan ee dalka, waxaanay ahayd himilo soo bilaabantay markii uu xilka qabtay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Madaxweyne Farmaajo oo Febraayo 2020 uu mar u kuurgalay sida howluhu u socdaan, waxa uu ku ammaanay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Mudane Khayre sida uu isugu xilsaaray dib u dhiska ciidamada. بسم الله الرحمن الرحيم. horta waxaan u hambalyeynaya aan u mahad celinayaa ugu horeyn ra'iisul wasaaraha oo hawshan runtii isu xil saaray oo runtii subax walba isku howla sidii ay dib habeentan ay u noqon lahayd mid guul ah, successful ah. anigu runtii waxaan ogaaday in ciidamadu aysan fayl lahayn markii aan tegay wasaaradda gaashaandhigga. marka runtii aad iyo aad yaan ra'iisul wasaaraha uga mahad celinayaa siduu isugu xil saaray oo guddigan u sameeyey. haddana aad sheegaysaan tirada ciidanka in uu ku dhow yahay dhammaad tirakoobkooda oo electronic ah iyo galkan. marka waxaa yaab leh haddii aan horey loo haynin gal uu ku yaallo qofka sawirkiisa, magaciisa oo buuxa, garaadihiisa, meesha uu joogo, haddii looga baahan yahay inuu howlgalo, dekreetada uu haysto mid sax ah miyaa, mala ganaaxay, shaqo wanaagsan ma qabtay oo runtii oo abaalmarin ah. dee qof aan fayl lahayn see loo oran karaa ciidan uu ka tirsan yahay? ya runtii waxaad gaarteen guulo runtii taariikhi ah yaa gaarteen. halabuurka awood ciidan oo Soomaaliya yeelata waxay ahayd dhabaradaygu uu sameeyey ra'iisul wasaarihii hore ee dalku, waxa uuna qaatay go'aamo lagu soo celinayo xuquuqda asaasiga askariga si loogula xisaabtamo askarta qudhooda xuquuqda uu dalku ku leeyahay. waxa uuna sheegay inaanu inta uu ra'iisul wasaaraha yahay aqbalaynin hanaanka ciidan beeleedyo magaca dowladda ku mushahar qaata. waxaan rabaa askari walba oo Soomaaliyeed oo maqlaya inuu maqlo dib habeynta aan ku bilownay ciidamada in lagu sameeyo. sababta aan ciidamada ugu sameynayna waxay tahay haddii aan ciidankana dib habeyn lagu sameyn, boqolaalka milyan haddaanay toos idiin soo gaarin, adduunyadu ma na aaminayso. waxaan rabaa marka inaan u sheego askari walba oo Soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha banaanka furunta oo dagaalamaya hadda, inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhamaato xuquuqdiisa inuu helo. laakiin waxaan la aqbalayn inaad xuquuq ka qaadato dowladda Soomaaliya oo aad hotel waardiye ka tahay ama been lagugu soo qoray ama kan email ay jirto. dhaqankaas wuu ka soo dhamaaday inta aniga dalkan ra'iisul wasaarahan ka ahay. ra'iisul wasaarihii hore ee dalku muddadii 3 sano iyo bilaha ahayd ee uu xilka hayay, waxa uu tacab iyo awood isugu geeyay sidii Soomaaliya u dhisan lahayd ciidamo tayo leh, waxaana muuqatay in maanta Soomaaliya meel fiican ka joogto Afrika. inkastoo dadaaladii dalka anfacayay Xasan Cali Khayre curiyay u muuqdaan kuwa aan la sii ambaqaadin, haddana Soomaalidu weli waxay haysataa fursad uu mar kale ku hogaamin karo 2021 haddii uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya ee uu sharaxan yahay.